السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ ندي سلامي أصحابتا إيو مدرس المال ملك استاذ شفتان وأنا جواه قريقان عبد الرزاق وحن ما تنسوا تشيدنيا قضباء آدم مهمة أو وحوي شرعي هذا ذلكين كتشرتا أولي بقى محيه ذي قارهان قيبت عيدا كددمسكا أو أنا هن عيدا شرعي حير هو صعب أنا لهين وولي بارلمان كنا قوسن دولد محيدي شرعي عادي oo umada kala hagayna inuu ka jirin hadii aan idin soo qodobeeyo taadiga iyo maxay ahayd taadiga ka dhaca iyo dulmiga iyo guumeysiga lagu hayo ciidanka dibdimiska gaar ahaan kuwa ka baqtiya waxaan idin soo sheegi lahaa iyadoo qodobeysan marka runtii anigu wax ka soo shaqeeyay taadiga san ka baxay sanadkii 2012 gaar ahaan kulliyadda looga ee sharciga قريقان بانكو شقيي waxaan la soo shaqeeyay legal aid unit kaalmada sharciga qaybta human rights ka xuquuqsanka waxaan nin experience u leh shuruucda iyo maxay ahaydey way aragnimo leh marka intii aan joogay dibdimiska muddo sanad iyo 2 bilooda waxaan runtii arkay sharci darro ka jirta oo maxay ahaydey dadka 19 qodob oo waxa lagu leeyahay sharci laga dhigayo oo fikir weey oo lagu gumeysanayo oo lagu tacaadiyay shaqaalaha marka iyagoo qodobeysan dulmiga iyo taadiga lagu hayo shaqaalaha hadaan idin ka hadlo waxa weey qodobka koobaad qaybta koobaad xuquuqda ciidanka dibdimiska kuruuda xuquuqda ciidanka dibdimiska iyo kuruuda dabka baqtiya ee naftooda horeyaasha ee dadkooda u gurmanaya naftooda u horaya waxa shaqeeyaan runtii 12 saacadood oo 15 habeena iyo 12 saacadood oo 15 maalin صدق عشاء واحد شقيان من إساس وشقيان مالن فصحنا مال أو جمعة حتى مالن تيجوا شقيان وحوي وهيجن عيدا كتيرة وماشي وهيدا هذا نفهم عيدا كواحد علي حقوق لو ذي أيام الدنيا سنة كلها بدي كل حتى ماكي واحد أيوة المشاهر أفر بلوضة ويجوا شقيان يا وحردي شقلا هولا صار هذاك هيا ويقاركون ربي لنا يان ويحاسليهين oo ay maxay heeday reeraha ay bilinayaan ay ka doonayaan kiro iyo mushaar oo waxa qaataan ay tahay milyan iyo 300 iyo milyan iyo 300 qaataan waxa weey runtii dad dhalinyaro aqoon-yahana wadankooda dadkooda badbaadinay laakiin dulmi iyo tacaadi lagu hayo oo xaqooga 4 bilood ka maqan yahay sanadka 2016 iyagoo beerarka xaq u lahaa in la geliyo maadaama xagga dawladda hoose ay mushaarkooda 4 bilood ka maqan yihiin ayaa waxa dhacday in shaqaale cusub lagu dul qaato iyagoo sidii bilaad mushaar waa beerarka dawladda loo dhixan lama gelin waxa la qaatay ciidan COVID-19 waayo halkii iyaga laga doorbidi lahaa waa ciidanka xiriirka ku jira shaqaynaya ee dulmiga loo geystay ayaa ciidan cusub oo dhibco COVID-19 arrimaha gudaha laga qaatay oo beerarka la geeyay iyagoo aan runtii mushkilad weyn weeyay waayo waa dulmi oo cadaalad darrada xasmiye agaasimaha waayo wuxuu gelin lahaa shaqaalahan buu gelin lahaa oo waxa qudnaa goobtaada marka aad shaqaalahaaga aad dayactirto ayaa shaqaale cusub qaadan karta shaqaalahaaga hore ayaa mushaharkoogii la aba sidee ba shaqaale kale uga daba gelisaa waxa weey waa runtii waa tacaadiyada dulmiga ka jira weey wax xuquuq oo ciidanka isku leeyihiin ma jirto sharciyan waxa weey hadii uu ninkaasi ku naftiisa ku waayo wax sharci oo meesha maxay yeelay sheegay xuquuqdiisii maxay yeelay in uu helayo oo maxay yeelay oo ubadkiisii oo xaaskiisii inuu haliye qaran hayo oo de ilaahay kuma keenay uu dabka ku dhintay ama uu guriga ku dumay ninka dabka baqtinay in caruurtiisii wax sharci oo kafaalo qaaday oo waa loo korinayaa maxay yeelay mushaarka waa la siinay ciyaalkiisa kama go'ayo ilaa inankiisa hadhoona booska galaya sharci saacad oo umada maxay yeelay majro oo ma bahayaanba ninkii maanta dibdimiska iska dhintaa wax noqonay nin dameer dilay iska dhintay inan kale oo dhaawac ka soo gaadhay baa jira inan ka dhaawac ka soo gaadhay runtii aad baan uga xumahay waa isagoo hawl qaran ku dhaawacmay inankaasi oo ishiisii ku waayay waxa dhacday haddana in lagu yiri dhakhtarkaasi yiri dhakhtar dibadeed baa laga qabanaya dhakhtarkii dibadeed muddadii loomaba geynba qarash looma diyaarinba waxa weey ninkaasi dhakhtarka inta yar lagu daweeyay mooyee dhakhtar caalami u baahnaa inaan dhalinyaro ahaa ishiisa isku ay tacaadigaas iyo sharci darradaas ayaa ku dhacday gariya maqnaanin maxay ay u dhintay buu noqday ugu dhaawacmay buu noqday taas oo imika waliba kuwa dabka galiyaana gariya maqnaan buu dhimanay wax cad oo maxay ku jira 19 qodob ee fikirka samayska ma jiro xuquuq ay ku haystaan ma jirto oo taati mushaarkooga aad arkaysid
ayaa waxba la iskaga tirinayn ka hadlay raado marka ciidanka mid hadlay raadana mushaarkaygii maxaan lagu maqayaa hana la siiyo waxa la oranayaa amardiidaad samaysay waa laga rasqaynaya shaqadii ciidankana waxa sameeyay waa agaasimaha isaga wax eriya isaga wax maxay qora taliya sawaaxil kama warhayo waa loo saxeexaa ma oranay qofka maxaa lagu eriyay muxuu galabsaday muxuu feelkiisii muxuu dambi galay uu saxeexayaa intaas oo shaqaale ayaa xaq darrada lagaga eriyay ciidanka markii la eriyo sharciyan waxa weeye janku ma beeri karaba shaqo joojin ku sameeyaa feelkiisa maxkamad baa erida maxkamadda dariiska ka dhigta markii dambi qaran ku aragto oo tiraahda waa laga soo kusheeyay marka dambiga gashay ku cadaado intaas oo ciidan oo fara badan oo la eriyay oo ninka yariyay agaasimu wax sharciya oo cadaalad oo lagu eriyay habeeraati ma jirto haddii maanta la weydiiyo maxaa lagu eriyay habeeraati ma jirto wadanku sharci buu leeyahay dastuurku xaq uu dadka siiyay in maxayda loo shaqeeyo aan lagu tacadiin oo xuquuq leeyahay ninka maanta maxayday dadka saa ugu tacadiyaya ee agaasimaha ee meel uu ciidanka ka soo galay habeeraati in jirin waxa weey ayaa dhibtaas ka jirta xuquuq xaq darradaas ka jirta waxa inta u dheer in maxay hayday xaqoodii maxay hayday inta waxa u dheer in maxay iyagu dadka galaya dadka ku dhaawacmay maxay hayday aan wax niyad wax maxay hayday xuquuqa dadka ay u dhimanayaan ani sharci jiraan u sheegin qodobka labaad aan soo daadego intaan joogay ciidanka dibadda waxa ay leeyihiin waxaan arkay maxay hayday inta ciidanka dibadda joogay waxa ay 19 qodob oo fikir ku samaysan ayaa ciidanka lagu dhaqaa waxa kamid ah qodobadaas waa lagu ganaaxay eris muxuu ahaa wax alla wax xaq u sheegay qofku muxuu xaq u leeyahay iyo muxuu waajibaad u leeyahay xataa tamushaarka inuu xaq u leeyahay inuu ku jirin baa wallahi 19 qodob waxa weey waxa la oranayaa 19 qodob fikir ku samaysan yihiin waxa la meedha baabuurta ciidanka oo ah inay dadka baktiyaan ayaa loo diraa baabuurka agaasimuhu ay meedha suldaanka loo meedha baabuurta kale dadka iyaga la shaqada la meedha ciidanka shaqadooda waxa weyn dadka galaan ma ahayn baabuurta maxay meel ka diireeyaan shaqadooda waa dadkana waa laga yeelay arba laga shaqeynaya sharci darradaas ayaa meesha ka jirta maxay dulmigaan waxa geystay inanka agaasimaha waxa weey ka shaqeysanaya inanka maxay sareeyo guutaa aan warba wahayn waxa wax laga weydiinaya oo aakhiriya adduunka wax laga weydiinaya oo dadka tacadiga lagu hayo dulmiga lagu haya aakhiri ilaahay u qabsanaya waa sareeyo guutaa ciidanka dibdimiska sawaaxili waayo maxay heeday warba kama hayo saxeexa loo keeno iska saxeexaya maxay heeday tacadiga ciidanka hadii ku raadaan aan taliyo waxaan ka cabanana waxa sideed ugu timaadaan booranay aniga inta sidoo agaasimo soo dhaaftaan inta soo dariiqaad dadka iga hooseeya soo dhaaftaan waa ninkii dhamaan loo caban lahaa ee meesha wax ka qaban lahaa ee maxay heeday shaqaalaha maxay xuquuqdooda maxay heeday wax uga qaban lahaa ayaa halka taagan runtii waa nasiib darro waxa weey qodobadaas maxay heeday wax xuquuq ay ciidan ku leeyihiin habeeraatay ma jirto waxa loo diraa mararka qaar star degmada markan ku jiray waxa loo diray maxay heeday inay degmada star waa runtii dhul la isku haysta ay ahayd annagii baan wax lagu yeelin gaadhay shaqada ciidanka booliska ayaa leh oo amni ku shaqale waxa loo diraa degmada star waxa kale ciidanka loo diraa maxay heeday waxa kale loo diraa dhulka la isku haysta ciidanka dibdimiska waliba kuwa dadka baqtinaya meesha waxa ka jirta maxay heeday tacadiyadaas iyo dulmiga uu sameeyay agaasimaha qaybta labaad qayb saddexaad u gudbo qaabka ciidanka loo magacaabo ama loo dilaacsiyo waxa lagu magacaabo ama lagu kala sareysiyaa ma aha qaab shuruud sharci ah ee waxa lagu kala magacaabaa dan gaar ah iyo qabyaalad iyo cadaalad darro runtii agaasimuhu isaga dilaacsiya isaga ku doono hoos u dhiga waxa weey taliyaha waa laga saxeexaa warba kama hayo isagoo xamad dilaacsiyo imka waxa jira maxay rag master iyo aqoontooda degree tahay heerkooda aqoonta aan lagu qiimeyn oo ay maamulaan dad secondary ka hooseeya waliba waxa inta soo dadka dilaacsiyo waxa reerkooda ayuu dilaacsiyaa wuxuu dilaacsiyaa reerkooda xafiisyada hadaad aragto taliyaasha hadaad aragto wallahi imka baad dad eegto inuu reerkooda ugu badan baa wallahi waxa weey waxa aan sheegayna wali bilow waxaan goobjoog ahaa aan soo arkay wali bilow oo aan marxaati ka ahay taas ayuu sameeyaa waxa jira ciidanka waxa weey taas ayaa jirta sidaas ayaa ciidanka lagu kala dilaacsiyaa waxa kale oo inta dheer ciidanka reerkooda lama eriyo fingerprinting baa leeyahay meesha fingerprinting oo loo sameeyay
sharciyan equal right xuquuq khaas ah sheegay kuwa reerkooda 3 bilood 3 bilood intay doonaan bas ka maqnaada nimanka kale aan reerkooda ahayna goobta ma